الله نحرسته وحاودن كامريكا ku geeriyooday aabaha dhalay xildhibaan Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee wadanka Mareykanka waxa geerideeda ka tacsiyay dad badan oo magac leh iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed Allah naxariistee Nuur Cumar Maxamed oo ahaa xildhibaan Ilhaan Cumar aabaheed ayaa nin muddo dheer ka soo shaqeeyay dalka isla markaana dadkii yaqaan ay ku tilmaameen nin farxaana oo dadku ay jecel yihiin warka geerida aabaheed Ilhaan Cumar ayaa waxay soo dhigtay baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter halka oo fariin kooban oo Ingiriis ay ku xaqiijisay in dunida uu ka tagay aabaheed fariinta Ilhaan waxay u qornayd sidan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhabahaantii Allah waxaan uga baryayaa in markaasi Allah ayaa ina abuuray way tiri isagaanan u laabanayna waa murugo iyo xanuun weyn inaan aabahay Nuur Cumar Maxamed sagootiyay ma jiraan bay tiri kalmado aan ku qeexi karo waxa uu ahaa iyo wixii uu ahaaba dhammaan dadkii yaqaanay ee jeclaa ay intaas sii raacisay fariimahaas ayaa waxa ka falceliyay kumanaan kun oo qof oo koontooyinkeeda kala duwan ee barahaasi Facebook iyo Twitter ku xiran Ilhaan Cumar Nuur Cumar Maxamed waxa uu yaraantii ku soo barbaaray magaalada Muqdisho halkaas oo uu kaga baxay dugsigii iyo sidoo kale dugsigii masaaridu ay maamuli jirtay waxa uu markii dambe ku biiray ciidamada militariga Soomaaliya halkaas oo tababaro kala duwan ku soo qaatay dalalka Masar iyo Ruushka markii dambe Nuur Cumar waxa uu tababaro u noqday ciidamada militariga ee Soomaaliya Abdullah Jimcaale Jiisow oo korneel hore uga tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya mudana ay saaxiib ahaayeen marxuumka ayaa idaacadda BBC da u sheegay in marxuumkan uu ahaa marxuum taariikh wanaagsan ku leh dadka Soomaaliyeed dhexdooda Abdullah Jimcaale waxa uu Nuur ku tilmaamay inuu ahaa nin ahlu taqwa nin ahlu diina Nuur waxa uu ahaa buu yiri nin dadku jecel yihiin oo aad iyo aad bashaash waa Nuur wuxuu ahaa nin farxaana Nuur wuxuu lahaa calaamadaha dadka Ilaahay jecel yahay ay leeyihiin oo kala ayuu inta ku daray Abdullah Jimcaale nin sargaal ah oo ciidamada Soomaaliya ka tirsanaan jiray ayuu ahaa sidaas oo kale aqoontiisa kale waxa uu ahaa nin mutacallima oo wax bartay muddana ciidamada Soomaaliyeed u soo shaqeeyay Abdullah Jimcaale wuxuu inta ku daray in Nuur Cumar uu muddo 10 sanadooda ay siqaaneen oo ahaa nin dadaal badan oo jecel inuu wax barto markii Soomaaliya ay dhibaatada ka dhacday ayay isla qaxeen Nuur Cumar iyo caruurtiisa oo ay ku jirto xildhibaan Ilhaan Cumar waxaana dib u dejin ka heleen wadanka Mareykanka halkaas oo uu waxbarashadiisa ka sii watay Abdullah Jimcaale ayaa sheegay in ninka Nuur ahaa laga dheehan karay caruurtiisa sida uu koriyo iyo sida bulshada ay markaas u tareen wax badan buu dalka iyo dadkaba u soo qabtay Allah u naxariistay buu yiri Nuur Cumar Maxamed oo ahaa aabaha dhalay xildhibaan Ilhaan Cumar waxa lagu xasuusan doonaa buu yiri dadkii uu ka tagay oo guddigood mutacallimiina waxa kamid ah Ilhaan Cumar oo xildhibaana waliba hooyadood way dhimatay isaga oo korinaya oo wax soo baraya Allah u naxariistay Nuur Cumar lama shaacin waqtiga la aasi doono balse waxa ka tacsiyay mas'uuliyiin kala duwan iyo xildhibaano ka tirsan Mareykanka kuwaas oo tacsi u diray Allah u naxariistay aabaha dhalay xildhibaan Ilhaan Cumar oo ku geeriyooday wadanka Mareykanka